اللهم صل على نبي سيدنا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد والله ليال كلن كينن waa mid khayr qaba marka hore waa wuxuu ay ku tahay wax khayr leen ku shaqeynayna danteena iyo dalkeena iyo inagaba diinteena wadana ilaahay ducaa sidaas oo sida koobanaynu ilaahay naga aqbalo fadhigeena iyo kulankeena aamiin inta kadib waxa aynu u kulansanayo halkan isugu nimi xarunta xusbiga wadani xubnihii golaha dhexe ee deegaamada ka soo jeeday deegaamada Habaroowal sida Burco Togdheer Saaxil Maroodi Jeex Gabiil inta ayay ka kooban tahay xildhibaanada halkan isugu yimi golaha dhexe ee xusbiga wadani waxa ujeedada kulanku yahay sidii aynu marka muddo hore oo wiil ka hore aynu ku sheegnay ciidanka in bariyahanba kulamo socdeen ay ku kulansanaayeen xildhibaanada ka soo jeeda gobolada aynu soo sheegnay ee xusbiga wadani si ay guntigiijin iyo horumarin iyo waxtar muruq iyo maal iyo maskax ay isla barbar taagaan xusbiga wadani iyaga iyo taageerayaashooda intaas waa ujeedada aynu ku kulansanahay halkan oo aynu cadeynayno dadka Somaliland ee u yaqaana ama loogu sheegay in Habaroowal xusbiga kulmiye tahay oo u raran tahay halka waxa looga jeedaa wax la cadibay oo la amaatureeyay oo la baabi'iyay ayay ka mid tahay xusbiyadu ka mid yihiin dalka Somaliland oo moodidii marka in la laablaabayba oo gebigiisiba laga dhigay maxaan ku sheega sidoo ahaa inta la soo wada laabay afarta dariif laga soo laabay dibadda laga soo laabay gudaha laga soo laabay dhowr qof buu ay waxay gacanta ku qaataan jeebada ku ritaan maraya ayaa waxaan doonaynaa inaan u cadeyno oo aanu kor u qaadno waqti afuufno xusbiyada la dilay ee la baabiyay waxaynu ku balansanayno isloognay Somaliland isbedelkeeni weynaa waxa ogtiin ka dhaceen inuu siday guulaha ay ka mid tahay xusbi inuu multi party system inaynu ku dhisano dalkeena oo in dawladeena ku dhisano dadkeena ku anfacno waxa lagu dambeeyay xusbiga kulmiye maanta talada haya sida yiraahdaan uu rogay qabaa'il reero kaambeeygu ku galaya solaadintii ba kaambeey ku jirto meelaha wareegayso kulba meel tegayso gobolada tegayso qabiila la sheeganaya halahaas waxay nagu kalifeen dad mufakkiriinta halkan isugu timi waxa ay garatay ina ay ka guuraan dadka oo ay ka goobaabiyaan oo ay xusbigani noqdo kii hoggaanka ahaa ee ku hogaaminayay dimuqraasiga iyo walaalnimada iyo wada nolosha iyo higsadka guusha Somaliland sida headline ku qoran yahay halaha markay tahay fi afkaarta aanu isugu nimeeno halkan ka cadeynayna ujeedada ugu weyn waa taa talabaad waxa weeye in la tilmaamo oo laga taliyo oo la guubaabiyo wixii wanaagsan ee jira wixii xun ee dalka laga hayana aanu ka soo horjeedaan dhamaanteed iyadoo jumlada waxaanu ka diriirsanahay oo aanu diidanahay oo aanan dib u dambe u doonaynin inay u socoto una yeelin xusbiga kulmiye sida magac ugu yaala beesha saweer awal ama habar awal sida la doonaha loo yiraahdo damiin kama aha damiin dawmanihin waxa taan u leenahay waxa arkaysaa iyadoo leeyahay Habaroowal baynu nahay aynu xusbiganaynu nahay labada ereyaysa saran waanu kala qaadnay iyaguna ha aaminaan xusbigooda reer kulmiye waxaan ugu baaqaynaa in xusbinimada aaminaan haddii aanay aaminayna dayna tartanka isaga haraan u cudbo waanu la tartamay wabillahi tawfiiq bihi nasta'in ala amri dunya wa din norta halkan hadalka waxa weeye waxa dhameeyay ninkii iga horeeyay Farxaan anay yar baan ku darayaa waxa weeyaan beesha halkan isugu timi xubnihii golaha dhexe aqooyahankoodii siyaasiyiintoodii madax dhaqameedkoodii
dhammaan ay halkan isugu yimaadeen ee dega gobolka Togdheer gobolka Saaxil gobolka Maroodi Jeex iyo Gabiley waxa kalifeynay halkan isugu yimaadaan markay aragtay xisbigii kulmiye ee wadankan xukumayay muddada 7 sanadood ah markuu xaraashay ilihii dhaqaalaha markuu xaraashay riboodadii dekadihii warshadihii dhulboobkii bilaabay dalkiina afar qof oo kaliya ay gacanta u gashay xukunkoodii oo dhan ee cartuuqle xariga xumaanta xasadka xiqdiga eexda waxa meesha ka socda markay isweera waa arkeen waxay garteen dalku inuu u baahan yahay badbaado qaran halkee wax lagu badbaadin karayaa bay noqotay waxa weeye xisbiga muuminka laba jeer god lagama wada qaniinaa leeyahay xisbiga Soomaaliland baabiyay ee qarannimadii suuxiyay hadii ba ku rooyay calankii waxaad ogtiin inuu soo halaagmay dhibaatada maanta meel u marayaba ictiraafkii qadiyadii Soomaaliland xamar laga doontay laga deedeeyo sixir bararka dhacay ee baanankii dalka baanan bareefada lagu wareejiyay halkii baankii waxaad ogtay shilinkii Soomaaliland ee aynu lacagteena ku beddelay dadka iyo dalkaniba soo dhaqaale beereen markay ku wareejiyeen baanan bareefada dadkan subeera wal waxay garteen isbedel dhaba inuu dalkan u baahan yahay isbedelkaana halkan laga doonay markay muddo dheer fadhiyeen fakareen dhan walba ka eegeen waxay isla garteen xisbiga wadani inuu yahay xisbiga kaliya ee lagu badbaadin karo qarannimada Soomaaliland annagoo isaga nimi meelaha aan hore u soo sheegnay waxaanu go'aansanay bulshada aanu ku abtirsanana u sheegaynaa war qabyaalada waxba tari mayso hadii ba ku rooyahay shakhsi jacayl waxba tari maayo waxa weeyaan dalkeenu badbaado u baahay badbaado qaran baynu u baahannahay badbaado qaran baynu u baahan halkaynu wax ku badbaadin karayna waa wadani aan isu taagno inaynu xisbiga codkeena iyo taageeradeena iyo waxeenaba siino imikana waxa bilaabmaysa kaadhkii diiwaangelinta meelaha ay ka bilaabmayso waxaan faraynaa waan u sheegayaa in qof waliba kaarkiisii maanta qofka aan kaarka qaadin birri codayn maayo qof walba kaarkaagii inaad doonato wasalaam waxaan isku haynaa qolada kulmiye subeero arinku waa iska dhigay hadalkana farxaan in kaliya horeeya dhameeyay qolada kulmiye ina sheegtay kara habaro waa kulmiye boona ma qabatay ayaan horta ka yara jawaabin hadalkana waa la soo wariyo xaywaano wala qoladii la kulmiye ku kaada kulmiye anaguna wadani baan nunay oo habaro walbaan tii cidna halka bedeeyadu la joogtay lafteedu xaq bay u leedahay qaaraan mid daba hay baa jiro habaro wal xaq halaysa siiyeenaguna wadani baan nunay habaro washa wadani baan nunay ku samro ku quusto bala naga qaada Soomaaliland ha noolaato wadanina ha sii noolaato waxa weeyaan hadalka waa la soo gaabiyay aan waxaan ka tirsanahay markaa golaha dhexe ee wadani ee Gabiley waxa weeyaan markaasi hadalkana la badin maayo waxa weeyaan waxaan isku nimid waxa odayaashii hore sheegeen waxaasuun cududeena iyo maalkeena iyo arinteena iyo waxeenoo dhan han isku geysana wadani waxaasina waa odayaashii ka qaadbisanaa Hargeysa Gabiley Berbera Qurco السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركو هراء دمان وحن سلام يا شعبوينها رير سوماليلاند قارهان تاغيرياش حسبك وضني قدو يدبت بميلي جيران مركا لباد وحن شيغيا حفلة ديداني وحي داران تاي هورتا مركو هراء inaanu iscadayno inaanu la declaration of unity inaanu la midownay xisbiga wadani dhammaantayo annagoo dadka halka fadhiya ay u badan yihiin xubnihii golaha dhexe oo aan u wada dhamaynay ka kala yimid Togdheer Saaxil Maroodi Jeex Gabiley waxaanu halkan ka cadaynaynaa inaanu dadka fariin u faraynaa oo waliba gaar ahaan anigu waxaan ka soo jeedaa reer Saaxil waxaan fariin gaar ah u farayaa oo idin oranayaa kariimkii habaro walba ka reer Saaxilow haddii wax kale la idinku sheekayn jiro leeyno oran jiray madow baa maraysaan wanaga maanta is cadaynay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadalkii murtidiisii oo dham horaa loo yiri anigu waxaan baan leeyahay
anigu horta waxaan ka soo jeedaa gobolka Togdheer imikana waan ka imi Togdheer waa wadani Togdheer waa wadani shicibka Soomaaliland reer Soomaaliland kulmiye ku bedeli mayno kulmiye ku bedeli mayno waxaanu leenahay shicib yahow haddaa ku qanaci weydeen 7 sanadood ee uu dalka xukumayay muxuu ahaa kulmiye waxaanu leenahay xusbiye kale oo ka siyaasad wanaagsan waxaan leeyahay waa in maanta codkeena aynu siino xusbiga wadani isugu geyno iyadoon qabiil loo eegayn laakiin siyaasadda qarbudka ah ee kulmiye aynu ka guuro waxa jira haddii aynu dib u raacno 7 sanadood ee uu kulmiye dalka xukumayay dalka inta gaadhay hore uma soo gaadhin haddaynu maantana garan weyno taawaynu maantana idhaa kulmiye maantana kulmiye ku bedel waxa weeyaan inaynu Soomaaliland baabiino arrintaasi waxay ku jirtaa maanta gacantiina ku jirtaa maanta yaanay idin seegin gacantiina maanta ku jirtaa codka maanta kii aynu maalintii hore ugu codaynay kulmiye maanta waxaynu soo saareynaa u codaynaynaa wadani assalaamu calaykum halkan waxaan ka salaamayaa odayaasha salaadiinta waxgaradka dhalinyarada golaha dhexe nimayow waxaynu halkan isugu nimid horta inaynu wadankeena badbaadino waxaynu isugu nimid inaynu Soomaaliland badbaadino maanta waxay taagan tahay Soomaaliland ma jirto markaad eegtaan dawladdii aynu dooranay ilaahay baan idinku dhaariyay markaad eegtaan miidiyaha waxay ka shaqaynaysaa xaqalqalin dalkii wuu baaba'ay war bal eega miidiyaha marka daawanaysaan bal eega balnimayo ee guryaha tagtaan amba jaraa'idka akhridaan ma jirto dawlad ka hadlaysa abaaro qorshe yaala ma jiro sixir bararkii baad arkaysaan horta waxaan fariin u faraynaa cidda xaqalqalinka laga soo qaadanayo ee Muqdisho Soomaaliland inaanay afarta xaqalqalinka siisan inaanay xukumin raggii u dhintay baa jooga kuway dhaleen baa jooga halkan waxaan ku cadaynaynaa maanta wuxuu yiri gudsi wuxuu yiri inta dambe si Soomaaliya waan is cadaynay waa barigii cigaaleen yiri arabo is cadee maanta waxaan u sheegaynaa gudiga dibad Soomaaliland beesha Subeerawal inay maanta inay tahay wadani kursiga Subeerawal baa maanta saaran wadani tolaayay maanta ma joogto kuwa kulmiye joogay maanta la tolaayay war tolaayay maanta ma joogto Habarawal waa wadani Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato waxaan kaga baxayaa dhalinleeyay wuxuu saa dambaad garan maanta wadani baanu nahay hadaanu Habarawal nahay dalkaanu ku badbaadinaynaa nin aan ogeyn ha ogaado waxaanu ka u sheegaynaa beelaha lagu beesha in awdal beesha in maxay hayday sool beesha buuhoodle beesha sanaag beelaha Togdheer beelaha Saylac waxaan u sheegaynaa haddii mubdiidi kaga jira Habarawal halkay talow tahay Habarawal way sacadaysay qodoquutay ku quuso waa wadani inaynu bayaamino u nimid Somaliland aad iyo aad baynu ugu soo maray hawl adag hantideennii ummadeennii wixii aynu maaragtay maanta ugu talagalay inaynu dheefno oo aynu ka faa'iidno wixii aynu u dhimanaynu u maranay ee dhibta badan inooga soo gaadhay waxaad moodaa inay maanta gacanta ku hayaan cid inaanay danaynaynad moodo ee dana shakhsiyaada oo cidana u jeeda
cida iyo mandaqada iyo meelo gaara iyo dadka maaragtay ula dhaqmaya siyaabo noocaasa inay faraha u gashay oy maanta gacanta ku hayaan waxa dhacda for example dadka cuqaasha iyo salaadiinta odayaasha waa la khasbaa waxa lagu khasbaa oo lagu maaragtay inta lagu tacadiyo la mariyaa dariiq la doonayo xisbi keliya in uu mariyo xisbiga talada haya cuqaasha iyo odayaasha maaha dadka dhaqanka in lagu khasbo wax gaara oo cid gaaray leedahay waa danta guud inay wada socdaan xisbiga talada haya haddii uu qalqalooc sameeyo ciddii toosin lahayd ee mustambeedka dalka u ahayd waxa weeyaan cuqaasha iyo salaadiinta laakiin waayadeednaba waxaa muuqata in aan dawladdu odayaasha dhaqanka salaadiinta waxgaradka waayeelka waxa loo isticmaalaa in la yidhaahdo xisbiga kulmiye raaca dawladdu odayaashu dawladunbay raacaan baa laga dhaadhiciyey muxaafidunbay ahaanayaan laga dhigay qabaa'il dawladda iyo xisbiga kulmiye ha ka noqdaan dib ha u eegaan qallooca ku jira ummaddii iyo qaybqaybsanka ku dhacay ee reeraha laga dhigayo ee reeraha loo kala qayqaybiyey gobollada loo kala qayqaybiyey intaasay kaga baxay ilaahay dembigeenna ha dhaaf kii waalidkeenna alla ha dhaaf cisi iyo sharaf iyo taraqina allah hayna siiyo dariiqa toosana xaqa ana ilaahay haynagu alhaamin tasarrufka isagaa leh laba qodobo yar baan ka hadlaya anigu waxba kale ka hadli maayo anigu horta waxaan nin Soomaali leena baanahay ka bari ku nool iyo ka galbeed ku nool ima kala xigaan Soomaali leen baan taagina waxaan xisbiyadanina waa kuwanoo deenba waxba ku hadlaya subeer awal magaca midna waan idiin sheegayaa 90 dir baanahay laba shay guri soo wada galaan dawlad baanu nahay iyo reer hebel baanu nahay war wallaan soo wada galin aan ku heshiinay Soomaaliland waxa weeyaan labadaas ay kala dooranaysa in waliba meeshu doon qoys yar meel ka taagto sida Imaaraadka iyo inaynu noqono qaran jiro oo adduunyada ka dhex muuqda aynu noqono labadaas ay inoo taagantay waxaanu taaganahay Soomaaliland wixii dhisaya iyo cidii dhisaysa ayaanu la soconaa anagoo reer magaalada anagoo magaca sheeganayna berbere iyo hargeysa iyo gibile iyo burcaan waxaanu taaganahay war wixii Soomaaliland dhisayay dhab ka tahay baan la soconaa kulmiyaanu maanta nahay kulmi waa wixii laga dhaadiciyay wadani baanu nahay kamaanaan soo guurin kaasaanu ahaanayna halkaasaanu ahaanayna midna way iga fariin war midna way iga fariin weeyaan midna way iga fariin Soomaaliland ma fariinta u diraya Soomaaliland baan u diraya laba goor ayay Soomaaliland dagaalantay mar waxay ahayd dhowr iyo 50 oo waxa bilaabantay xarakadii ugu horeysay oo laga soo bilaabay meesha dumar la yiraahdo 4 sanadood baan reer dumaraad iyo reer hargeysa reer burcad fadhiyeen ayay fadhiyeen halka waxay fadhiyeen dumar meesha la yiraahdo 4 sanadood bay fadhiyeen inta ingiriisna meel walba waa kaga xeernaa gaar buu ka hayay waxba kama noola maanta ragii nin qori kama noola kii u dambeeyay ma dhaweyd baan naas waxaanu taaganahay war Soomaaliland laba goor bay dhawaaqday ilaahay u dhawaaqay mar waxay tiri Allahu akbar gaal baan nooriyayna diintan isku xukumayna waxba kama suura gelin fardal kafay uu ka dhacayo xamar baa la geeyay calankii midka waa la laabay tii labaadna shalay bay ahayd ragii waxna dhinta waxna waa kuwa soo buuxaano jafani kuwana kamid ragii ilka xoriyay annaguna kamid baanu hayno shilin waxaanu haysanay halkaas maan ku wadnay iyo aqoon tollay ilaahay oo inaga gaadhay tollay ilaahay maalintii la xiray Cabdullaahi askar xaq waxaan joogay gadar gaar soo waxa la yiri Cabdullaahi askar geesaa lagu xiray tollay ilaahay oo iga gaadhay hadalka cid waliba hal aamusto waxaanu taaganahay saak calankii halka aanu ka taagnay laa ilaaha illa allah muhammad rasuulullah balan baynu ku qaadaynayo diinta isku xukunno diintii isku maynaan xukumana waynu ka leexanay dabad waraabo waliba wuu yimid intuu doonaba goostay waxaynu taaganahay saak kiiskii ugu horeeyay maanta la furay hargeysa wali wuu furaya
war waxa loo baahan yahay xisbi weyn maanta ay guddidiisa halkan ku fadhina war inaynu ilaahay xaqiisa u hiilinaa baa loo baahan yahay waynu helaynaa ku bishaaraysta haddaynu daacad noqono waynu bedelaynaa kulmiye waynu bedelaynaa laakiin ballan baa la doonayaa salaamu calaykum caddeeyo waxaan ka soo jeedaa gobolka saaxil ayaan odayaasha ka soo jeeda ka mid ahay marka haddaan gobolka ahay gobolka aan ka soo jeedo haddaan in yaro madadaalaha ku daro annagu faamiligii saaxil ee fardaha awraha qooqay iyo faagu jiidhay tareenka ee firxadaanu ahayn ee faradde annagu faamiligii saaxile fardaha awraha qooqiyo faagu jiidhay tareenkuee dabadeed fidhadoodii asqaysaye faradeer iyo xeedhiyo faraxii biyo guure iyo farontii dabagaalle filqan baanu ahay yacnii berberaba iskaga baxay dhulkaa ku filqan ayaanu ahay marka fule ii tarisaayey doqon fiiro taqaan iyo fakin ay cadhe haysay iyo fiintii baa igu yuusay oo inan faaruqay mooday marka fiixtu dilaacdo way noo farantii iyo fulufuul iyo sheekh intaas waa in gaaro anigaa iska warramay in kale duco allow hirdidiyaha raatida seben hareer naga mari hogaha nuxuus allow hoobad iyo halaag dabargo ah dhulkoo hanqadhiyo hawada duufaan harooyin butaca naga hay allow hana badin abaar holacoo hawaaro sideed la haydalo oo horweyn iyo aray hadhaa rido oo hunguri xaalif uu hamaansado allow hana badin haraad foqoro in layso hawalo la hidin waayo la kala haajiro huqiyo silic allow hana badin allow hadimada habeenka baxdiga halqiga la xisaabaya halista ah habboonow nebigii hareertiisii iyo hadhkaagana jooji habarwaca allow hana badin mid haamaano sidii hildar hoonka dhiila rido allow hana badin mid haamaano sidii hildar hoonka dhiila rido hiddiisoo fogayn halqiga dhiba allow hana badin mid hooda xunoo habeen dareen hooyadii dahato halkuu jooga haakah laga odhan allow hana badin allow hanfadiyaha rooshe magaan naftiisa huraynin goob huduutuul hamba u quudhihaynin ruuxu hangaday hanaga dhalin hooyadii gabe allow hana badin allow xisbi haybad loo hirgaloo hogaamo madax iyo hormuud madax iyo hogaamalehoo u helan hashiisa maandeeqoo halgama oon habsaamin naga yeel sida aanu la sheegaya aan u arko subeerawal iyo habarawal mid kastaba ha la yidhaahee wax imanka dhashay maaha oo wax weligoodba jiray wax in yari ay ku dhawaaqato oo ay ku adeegatana ma aha in yaroo tirsani waxay ku adeegatana ma aha waa badantay habarawal waa badantay meel walba waa joogtaa subeerna waa badan yihi haddii la bilaabay oo dadkii talada inoo haya ay bilaabeen halkaa ka bilaabeen ee lambarka ka garaaceen meel walba wuu ka dhawaaqay oo subeerro badan oo kalaa soo bixi burcay ka dhawaaqayo sool bay ka dhawaaqayo sanaag bay ka dhawaaqayo gabiile bay ka dhawaaq meel walba subeerro badan iyo awal badan wuu ka soo bixi xisbiyo kale ka soo bixi
markaa kolka halkaa laga garaacayo xisbiga talada haya oo halkaa ka garaacayo dee markaa dee kuwii kalena miyuu dhiiri gelinaya ummadii kale ilaa ummaddu subeer awal iyo habar awal un maahe subeer garxis baa soo bixi subeer jeceli baa soo bixi subeer samaroon baa soo bixi subeer waliba wuu soo bixi doonaa marka markay halkaa ka garaacayaan kolka sidaa loo eego halkaa ay ka garaacayaan dee waxay ka bilaabeen kolkaa halkii u liidatay ee qaranka ugu liidatay ayaa laga bilaabay waxaanu leenahay annagu inta iyada halkan joogta maanta taageerayaasha ah wadani iyo golayaasheeda ah ama wixii subeer awal jooga ama wixii joogay habar awal waxaanu raacsannahay oonu ku biirayno taageersannahay wadani xisbiga la yiraahdo